bilowga taxaniin cusub waxaana la baryaa gabar lagu magacaabo Lee taas hurdo ka soo kacday waxaana Lee ka shaqeyn jirtay company waxayna ahayd 30 jir aad bayna shaqadeeda ugu raaxaysan jirtay ween isdiyaarisay si markaan shaqadeedii u aado markay isdiyaarisay way soo baxday waxayna bilowday inay markaan howlmaalmeedkeedii sii gasho iyadoo markaas bilowday inay kala hadasho macaamiisheeda internetka daawad intaan muuqaalka si guud gelin canshuurta iska bixin oo la galay muuqaalka hada dalkan ku cusubtayna ka mid noqon saxaabadana ku xiran kadibna waxaa la baryaa inuu magacaabo Mo kaasoo gaarigiisa watay waxayna hayeen isaga gacan yarihiisa intii markaan socdeenba wax markaan agamariyaan gabdhay Leed oo markaan qof ma weelinaysa telefoon ku dimanaysa laakiin gabdhay Leed way ka dhaqaajiyeen balse gabdhay Leed ayaa markaan ku dhacay telefoonka ka riday ninkana waxa waaneen tuuga kaasoo ka daba jureen Mo iyo gacan yarihiisa ninkiina markuu arkay in Mo iyo markaan ay ku soo wajahiin waxa uu bilaabay in gabdhay Leed oo markaan kala tuuro wiilkii Mo aha oo halkaas ka cararo gabdhay Leed wiilkii Mo wax markaan ku halinaysa rooseetadeeda waxa markaan ku tiri afur ma ka raalgelinaya rooseetadeeda ayaan kugu haleeyay laakiin gacan yar ayaa markaan ninkii gacanta ku dhigay waxa markaan ku tiri gabdhay Leed isugu aan ka tiri waxaan kugu haleeyay laakiin isaga waxa uu yiri dhib ma lahan waa uu ka dhaqaajiyay waxa markaan halkaas ka soo watay ninkii ay raadinayeen waxa markaan wada beeti kale ninkii maqaayad waxana bilaabeen cunto raashin markaan ka bixiyaan oo markaan dhamaan ay ka qaataan barnaamijkii ugu baahnaayeen wax walba ayuu u sheegay waxaan markaan u sheegay in kambanigooda isaga iyo team kale markaan duulaan ku ahaayeen oo ina doonayeen inay markaan jabsadaan laakiin iyagana ka hortag ay sameeyeen oo wax mid aan caadi ahayn maadaama isaga gacanta ku dhigeen inta ka dib waxaan aragnaa gabdhay Leed kambaniga markaan ka shaqeynaysay dhamaan dadkana wax markaan ku jiray meeting roomka iyagoo markaas kulan qaadanayay shaqaalana wax markaan loo sharxayay dhamaan sidii shaqooyinkooda u hagaajin lahaayeen oo nolol kala qaban lahaayeen isla markiiba waxa halkaas imaanaysa gabdhay Leed waxaana bilowday in markaan howlwadeenkii la hadasho oo markaan ku tiraaho sharaxaad aad bixinayso dawaana saxda technicalkeeda maxaa yeelay aniga ma aanan fahmin sharaxaad aad bixinayso sidee bay ku fahmi karaan shaqaalaha waxay u baahan information fiican waana sad ugu macquulsan shaqaalaha wax u fahansiisa isla markiiba idin wax markaan u yeeray maamulihii kambaniga wayna soo dhaqaajisay markii maamuluhu tibid maamuli waxa uu ku yiri waxa jira warar been abuur oo laga faafiyay kambanigeena waxaana qasab in arrintaasi ka hortagno sida ugu dhaqsiyaha badan waana inaan warbaahinta u sheegno waxaas oo inay been yihiin idin waxay ku tiri dhib ma lahan maamul midaas aniga ayaa qabanaya aniga ayaana ka ballan qaad in ceebtaasi soo tirtiro isaga waxa uu ku yiri in kambanigeena ceeb loo soo jiido waa ceeb aad u weyn inaan ka hortago waynana waa ceeb kale sida ugu dhaqsiyaha badan waana midaan wax ka qabanaa waana soo dhaqaajisay waxna markaan imanaysa xafiiskeeda waxaana bilowday hawshii loo diray in markaan qabato kadibna way soo baxaysaa gabdhay Leed iyadoo markaan soo aadi baarkii markii ay timid waxay bilowday in halkaas waqti ku qaadato oo in halkaas ku dhageysato heeso lagu qaadayo oo aad u qurux badan cabitaan badanna way cabtay halkaasna waxa imaanay wiilkii Mo aha waxa uu bilaabay in halkaas ku cawiyo oo halkaas ku tumo muusiga aan caadi ahayn iyadiina aad ugu raaxaysanaysay wayna dhageysanaysay ugu dambeyntii markii showgii uu dhamaaday waxay bilowday in markaan miiskii hurado shaqaaleena waxay ku yiraahdeen maxaa dhacay ma bixaysid miya iyadana waqti xadirkaas maysan la hadleen maadaama ay aad u cabsaneed waxayna ku tiri aniga ma jirto meel aan u socdo waxaana markaan arkay wiilkii Mo aha wuxuuna ku yiri maxaa kugu dhacay oo xilligan meeshaan la jeefta waana soo kacdaa sida ugu dhaqsiyaha badan iyadana waxay ku tiri markaan ku fiiriyo aad baad u qurux badan tahay waana ka helay maxaa yeelay waxaad ila muuqataa saaxiibkeygii hore isagiina hadaladeedii aad ba ula yaabay maadaama ay ku hadlaysay hadallo maala yacni ugu dambeyntiina waa uu soo waday waxaan markaan keenaya banaankaas oo markaan gurigeeda u geeyo waxaana ku yiri waana sheegtay adreeskaada si aan gurigeeda ku geeyo xageedna ku nooshahay iyadina waxay ku tiri aniga baabda midaas weydiinaysa waad ogtaa meesha aan ku noolahay waadna taqaanaa isagana waxa uu ku yiri war meesha deganta ma aqaanay booliska miyaan ku wacmis waan ka tagaa iyadina waxay ku tiri horta ma awooda inaad iga tagto waxaana bilowday in markaan istaagto iyadoo markaa ta saarneed meel kore waxaan ku tiri aniga aad baan u nasiib daranahay haddii aan adiga ku arko aan ku calfan waayo laakiin isaga waxa uu ku yiri maya aniga waan ka xumahay xiriir ayaan leeyahay mana ku qaabili karo iyadina waxay ku tiri oo madaga ay qaabili karin waa maxay xiriirka aad leedahay beentaada gacanta ayana soo qabatay waxayna ku tiri been ayaad sheegaysa ma jirto wax xiriir aad leedahay wiilkii Mo ahana wax uu dareemay in gabdhan aad u dhaasan tahay waa uuna soo waday isagoo markaan keenay hotel subaxdiina waaga ayaa bariyay ulina wax ay jiiftay hotelkii intii hotelkii ay jiiftay telefoon ayaa markaan u soo dhacay telefoonka markuu u soo dhacay wax markaan loo sheegayaa in ninkii Mo oo degdeg ku yimaado xafiiska markay midaan maqashayba aad u shoogtay waxaana bilowday markaan geeseedii fiiriso waxaan arkaysaa dhammaan alaabihii iyo fanaanadii iyo jaakadii oo markaan banaanka lagu tuuray maxaa yeelay iyadii wiilkii Mo xali oran ay waqti wada qaadanayeen markay midaas soo xasuustay madax ayaa xanuunay waxaana bilowday isla markiiba markaan labiskeedii soo qaadato oo dhammaan dharkeedii markaan soo xirato degdeg ay halkaas ugu soo baxday waxaan markaan ugu dambeeyay imaanaysaa kabarigeedii waxaana bilowday inay soo shaqo gasho iyadoo markaas aanan dareesinayn dadka xalay waxay ku sugnayd shaqadeeda ayay bilowday markaan hore u sii gasho iyadoo markaan soo fiirsatay xafiiskeeda ugu dambeeyay maamulka kabariga ka shaqeynaysa gabdhay Leed wuxuu markaan la kulmay wiilkii Mo aha maadaama sumcad xumo loo geystay kabarigiisa wuxuuna doonayay
maamulahani in wiilkani Moha uu kala shaqeeyo kambanigiisa si sharafta kambanigiisa dib loogu soo celiyo. wuxuu markaa la heshiinaa wiilkii Moha isagoo markaas ku yiri waxaan ka rabaa inaad kambaniga sharaftiisa dib u soo celiso sidaad kambanigaadiba sharaftiisa dib ugu soo celisay. maxaa yeelay kambaniga uu leeyahay wiilkani Moha mar ayuu ceeb aad u weyn la kulmay waa uuna soo dhaweeyay maamulihii wayna soo dhaqaajiyeen kambaniga ayna gudaha u soo galeen wuxuuna bilaabay maamulihii inuu mid u kala tuso dhammaan kambanigii iyo meelaha uu ka kooban yahay iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya. wuxuuna wiilkii Moha arkayaa xafiiskii ay markaana fadhisay gabadhii Lee ahayd waxaana markaa loo sheegayaa in gabadha halkaana fadhiso ay tahay howlwadeenka kambaniga. wuxuuna markaana soo xasuusanayaa gabadhii Lee sidii isaga ula dhaqmaysay. ugu dambeyntii shirka ayaa markaana soo fadhiistay waxayna bilaabeen dhammaan maamulayaasha kambaniga ka tirsan inay markaan la shiraan wiilkii Moha isagoo markaas bilaabay inuu markaan u sheego sidii uu markaan wax ka yeeli lahaa ceebta loo geystay kambanigan. isla markiiba gabadhii Lee oo markaan carreys ayaa timid waxayna ku tiri sorry waan soo dahay laakiin maamulaha ayaa ku yiri waa inaad fariisataa adiga wax waad ka qaban weysay ceebaha loo geystay kambanigeena laakiin waxaan u wacnay wiilkan kaasoo lagu magacaabo Mr. Moha isaga ayaa wax ka qaban doona. markii ay fiirisaba waxay markaan ogaanaysaa ninkan inuu yahay ninkii Moha kaasoo ay baarka hore ugu kulmeen waxaana bilaabay inay markaan fariisato oo markaan shirka ka qayb gasho. intaa kadib waxay bilaabay inay markaan fiidiyo daawadaan iyagoo markaa halkaas ka qiyaas qaadanaya si markaan shaqadii looga baahnaa ay u qabtaan. waxayna bilaabay inay mid ugu sharaxdo dhammaan waxyaalaha loo geystay kambaniga isla markii waxay markaan maqlayaan in raaligelin laga bixiyay dhammaan ceebihii loo geystay kambaniga. midaana waxay ahayd guushii ugu horreysay oo markaan la gaaray markii la shiray wiilkii Moha. intaa kadibna shirkiga uu soo dhamaaday waan la soo dareeray gabadhii Lee hadda wax markaan lagu amray inay markaan sii dhaweyso wiilkani Moha. wiilkii Mohana waa uu soo dhaqaajiyay waxaana soo wadaysa gabadhii Lee waxayna soo istaageen wiishka. markay wiishkii soo istaageen wuxuu ku yiri wiilkii Moha markii aad baarka joogtay markaad kambanigaani joogto laba qof ayaad kala tahay maxaa dhacay. markii hadalkaas uu ku lahay aad buu u yaabtay wayna soo dhaqaajisay waxayna markaan ku soo laabanaysaa xafiiskeeda markuu soo laabatay waxay bilaabeen markaan shaqadiisii guda gasho inkastoo wata hadarkaas habeen yahay oo aysan jirin cid joogta kambaniga laakiin iyada waxay ku qasbanayd shaqadeeda inay dhamaystirto. kadib islaamiyeenkiiba gabadhii Lee way soo dhaqaajisay iyadoo markaan soo gashay qaybta hoose ee kambaniga halkaana waxay yeelay dhammaan systemkii kambaniga mana aysan u maleynin halkaan cid inay joogto maxaa yeelay hadda ay soo ogaatay inay halkaan ku taalo kambaniga gudaha ay soo taagsatay si halkaan u soo hubiso soo ogaato wax yaala. aad been waa cabsanaysay maxaa yeelay meesha oo dhawada mugda ay yahayd waxayna mid cabsi leh kaligeed ayana gaagaatamaysay oo ma aysan jirin cid halkaan joogtay. ugu dambeyntii wax markaan soo galiyay qolka markay soo gashay waxay bilaawday in markaan fiiriso alaabtii taalay laakiin qolka ayaa markaan isxiray. markay midaan aragtay aad u la yaabtay maadaama ay halkaan ku go'doosan tahay waxaana bilaawday in markaan isku dayday in albaabihii furto laakiin albaabihii way furmi waayeen waxaana bilaawday inay gargaraacdo laakiin hal mar ay furmeen waxaana markaan soo muuqanay wiilkii Moha. markii wiilkii Moha ay aragtay waxay bilaawday inay qayliso inay cararto laakiin isaga ayaa qabtay waxaana ku yiri maxaad la cararaysaa. idan waxay ku tiri ma adiga kaliya qof kale ayaan ku maleynayay adiga halkaan maxaad ka qabanaysaa. isagana waxa uu ku yiri hay tugnimadeeda halkaan ayaa soo gashay waxaad u maleynaysaa inaysan cidna joogin. kadibna waxay bilaabeen inay markaan hore u sii socdaan waxaana jirtay jaraanjar markaan lagu soconayay jaraanjartana waxa ka hooseeyay biyo waxaana bilaabeen inay markaan labadoodii halkaas ku sheekaystaan oo waqti fiican ku wada qaataan. waxayna ahayd markii ugu horreysay oo markaan ay labadoodii wada hadlaan waxaana ku dhahayay wiilkii Moha adiga aniga aad baan kaala yaabay maxaa yeelay waxaad leedahay wajiyo badan. markii hadalkaas uu ku dhahay waxay bilaabeen markaan jaraanjartii ka dhacdo biyo ayaa ku dhex dhacday waxaana ku yiri hay gacantayda soo qabso. waxayna ku tiri gacantaada ma rabo laakiin jaraanjarta ay dib u soo fuushay wayna soo baxeen waxay markaan ku soo laabteen xafiiskii waxayna markaan ku tiri hay aniga sidaad ii malayso maahi waad qaldan tahay waxyaabaha qaar aad iga aaminsan tahay 100% maahi waa inaad midaasi ogaataa. wayna ka dhaqaajisay iyadoo markaan hooygeedii aaday. markii gurigeedii timidba gurigooda oo dhan wada mugdi ayuu ahaa taleefkeeda ayaa markaan daaratay taleefankeeda markay daaratay cabsi ay markaan dareentay maxaa yeelay qof ree aqraad weeg ayaa markaan agteedii soo istaagay. markii aragtayba waxay bilaawday inay aad u qayliso oo aad u naxdo oo markaan qofkii garaacdo laakiin ugu dambeyntii qofkii waxa markaan iska furiyaa wajiga wax uu nahaa walaalkeeda. waxay markaan ku tiri hay wariga filankaan miyaad ii keentay haddana ree aqraadna miyaad ii jilaysaa. waxayna bilaawday walaalkeed inay cajiso waxuuna ku yiri war ha idilin adiga muwaalan tahay waxaana bilaabay in markaa walaashiisa raali geliyo maadaama isagii ka weyneyd. walaalkeeda ayaa bilaawday halkaas ugu sheekayso waxaana bilaabay labadoodu halkaas isaga sheekaystaan. maalintii xigtana gabadhii Lee way soo dhaqaajisay iyadoo timid kambaniga waxaana bilaawday inay markaan la hadasho kambanigii oo markaan u sheegto shaqadii ay markaan iyada qaban lahayd. isla markiiba waxa halkaas ugu imaanaya wiilkii Moha maamulina waxa markaan ku yiri wiilkii Moha aad baad u mahadsan tahay markii aad kambanigeena timid dhammaan ceebihii oo dhan waa ka raysanay kambanigeena waa uu xasilay waxaadna moodaa sidii hore inaan aad ugu fiicannahay dhaqaale ahaan iyo sumcad ahaanba waxaan rajeynayaa inaad nala sii joogi doonto oo aadan naga tagin si markaan kambanigeena
sumcadiisii ay hawad u gasho. wiilkii Moana wuxuu ku yiri may waa sii joogi doonaa inta ay gabadhan quruxda badan joogto. wuxuuna ugu dan lahaa gabdhii Leeyahed halkaas way ka soo dhaqaajisay. waxaana markaan wada fiirsanay wiilkii Moa iyo maamulihii waxaana bilaabay inay wada shiraan. iyadina waxay markaan soo fiirsanay saxafiiskeeda. kadibna gabdhii Leeyahed way soo dhaqaajinaysaa iyadoo markaan timid maqaayad. waxaana markaan la socday wiilkii Moa ahaa. waxaana bilaabeen iyadii wiilkii Moa inay halkaas ku wada sheekaystaan oo markaan kafee wada cabaan. inta ay wada sheekaysanayeen waxa markaan ku yiri marka aan ku arkay hadda yaadba ka qurux badan tahay. halkaas ayna bilaabeen inay si aad u qurux badan markaan ugu wada sheekaystaan. ugu dambeyntiina gabdhii Leeyahed iyo saaxiibkeedii way soo kala sheeka bagteen way soo dhaqaajisay. waxaana markaan soo aadisay gurigeeda markay timid albaabka soo furtay waxay markaan arkaysaa inuu guriga joogo aabaheeda. laakiin walaalkeeda ayaa ka hor yimid. waxay ku tiri hay maxaa qaldan aaba ayaaba joogeen. laakiin walaalkeeda wuxuu ku yiri may wax qaldan ma lahan aaba kaliya waana soo booqday. ugu dambeyntiina cashada ay diyaariyeen aabooda ay markaan u waceen waxaana bilaabeen markaan wada casheeyaan oo markaan ay wada sheekaystaan dhammaantooda. gabdhii Leeyahed dambe aysan fahansaneyn sababta markaan familkeeda ugu yimaadeen. waxayna bilaabeen inay markaan waalidiintoodii la sheekaystaan gabadhoodii maadaama waqti xadarkan iyada ay shaqaynaysay. hooyadeedii iyo aabeedna waxay halkaan ugu yimaadeen inay markaan gabadhoodii arkaan oo markaan iyada xaaladeedii ogaadaan. waxaan markaan ku yiraahdeen hay gabadhayda markaan gabar weyn ayaad noqotay maxaa dhacay maxaad u guursan waysay. laakiin walaalkeeda ayaa baxrafikay oo ku yiri may hadda walaashiisa way shaqaysaa laakiin mar dhow waxay rajaynaysaa inay guursato. laakiin gabdhii Leeyahed ayaa markaan soo booday waxayna ku tiri may aniga waan guursan doonaa. intaa kadibna waxaan aragnay wiilkii Moa oo markaan dib ugu laabtay baarkii oo markaan kula kulmay gabdhii Leeyahed. waxaana bilaabay halkaas waqti ku qaato soona xasuusto waqtigii quruxda badnaa oo baarkaan kula qaatay gabdhii Leeyahed. halka gabdhii Leeyahed gurigeedii joogtay waxaana markaan u imaanay aabaheeda. waxaana markaan aabaheedii ku yiri gabadhayda adiga aad baad u mashquul badan tahay inta badan waqtina ma heshid. waadna ogtahay hooyadaada way xanuunsan tahay waxayna markasta u baahan tahay in iyada la daryeelo. aniga haddii aan fikirkeyga kugu darsado waxaa habboonaan lahayd inaad guursato. haddii aad guursatona howlahaada waad sii wadan kartaa wax kastana way kuu fududaanayaan. laakiin gabdhii Leeyahed iyo aabaheeda waxay ku tiri aab aniga weli ma aanan helin nin igu habboon oo aan guursado. aabaheedina wuxuu ku yiri aaba maxaa dhacay 10 sano ayaad naga maqan tahay oo weli miyaadan helin miyaan aad guursato. laakiin gabdhii Leeyahed waxay ku tiri maya balse waxaan rajeynaa inaan helo. intaa kadibna aabaheeda waa uu ka tagay waxaana ku yiri dhimalahan aab iska sii saaxo waa xilli dambe mar kale ayaan si fiican u wada sheekaysan doonaa. waa uuna ka tagay aabaheeda isagoo albaabka u xiray. markii aabaheeda uu ka tagayba waxay bilowday inay markaan qaanad ka soo bixiso buug ayay bilowday markaan kala faydo. wuxuuna buugaani buuga xusqorkeeda waxay markaan ku arkaysaa sawirro hore kuwaas ida xasuusteeda ahaa. waxaana jirtay waqtigii hore wiil ay aad isku jeclaayeen kaasoo aad u qurux badnaa iyadan aad bay u jeclayd. laakiin iyadii wiilkaas waqti ayaa kala geeyay. sanado badan kadib ay dib u kulmeen waxaana bilaabay inay markaan sheekaystaan. wiilkiina wuxuu markaan u sheegay inuu iyada aad u jecel yahay laakiin hadda isaga u guursaday gabar kale waana inay midaasi aqbashaa. maxaa yeelay iyada markii ka tagtay kadib waa uu dareystay qof kale ayuuna helay uuna guursaday. marka midaas maqashay gabdhii Leeyahed ilinteeda ayaa markaan qabatay aad bay ugu xumaatay wayna ka soo dhaqaajisay. waxay markaan imaanaysaa musqusha iyada aad u murugsan wayna oynaysay. waxaana bilaabay inay markaan wajiga iska dhaqdo. wajiga markaa iska dhaqdaba waxay bilaabay inay markaan oyso maadaama jecelkeedii ugu horreeyay markaan ku guul dareysatay. halka wiilkii Moa oo markaan kusoo laalaabanayay baarkii oo markaan kula kulmay gabdhii Leeyahed markastana iyada ayaa halkaan kusoo xasuusanayay. maxaa yeelay markii ugu horreysay ay wada kulmeen halkaan ay ku wada kulmeen. halka gabdhii Leeyahed ay xafiiskeedii joogtay iyadoo markaan howlaheedii sii wadatay. maxaa yeelay howl aad u culus ayaa ugu taalay xafiiska inkastoo waqti xadarkan habeenimo ay yahayd oo dhammaan shaqaalihii ay ka wada tageen xafiiska. subaxdeena waxay markaan imaanaysaa kambanigeedii markay timidba waxay markaan toos soo aadaysaa xafiiskii maamulaha. markay timidba waxa markaan dhexda ku qabanay directorkii waxaana ku yiri xageed socotaa. iyadana waxay ku tiri waxaan u socdaa maamulaha wayna soo dhaqaajisay sidoo markaan ugu dambeyd u timid maamulaha. maamulihina wuxuu markaan ku yiri ayaantan aad baad ugu gaabisay shaqadaada maxaa yeelay dokumentiga lagaa rabay weli ma aadan soo gudbinin. waad ogtahay xisaabaadka oo dhan adiga ayaa lagaaga baahan yahay adiga ayaana lagaaga fadhiya laakiin shaqadaadii waa ta gaabisay. waxaan halkaasi fadhiyay wiilkii Moa oo hadalkooda dhageysanayay. markii hadalkaas lagu dhaafay waxay bilowday halkaas ka dhaqaajiso ina markaan aado shaqadeedii. maamulihii wiilkii Moa way wada fariisteen si markaan hormaameedkoodii markaan ugu sii wada hadlaan. kadibna gabadhii Moa way soo dhaqaajisay iyadoo markaan timid meel markaan cafeteria ah. waxaan markaan bilowday in halkaas fariisato ina markaan halkaas ku cabto. laakiin kookeedii waxa markaan fadhiyay wiilkii Moa wayna isfiirinayeen maadaama aysan waqti xadarkan isla hadlaynin. maxaa yeelay shaqadaas oo kaliya ayaa ka dhaxaysay inkastoo labaduba oo dareen ka dhaxeeyay laakiin weli ma aysan jirin wax dareen oo markaan ay wadaageen. kadibna waxay bilowday in markaan la kulanto maamulihii markay la kulantay waxay bilowday in markaan la sheekaysato. waxaan markaan u sheegaysaa in dhammaan xisaabaadkii markaan soo dhameystirtay. waxaan markaan u sheegtay in sanadkani uu soo xareeyay kambanigooda xisaab aad u sareysa oo ka fiican yahay dhammaan sanadihii hore. maamulihii wuxuu ku yiri midaasi waa shaqo culus oo anaga aan qabanay
galnay oo aad adiga ka mid tahay shaqaalaheena si heer sare ay u shaqeeyeen ninkii Masar Mohan aad buu noo saacaday maadaama shaqadeeni ay sare kacday sheekada kadibna way ka soo dhaqaajisay iyadoo markaan ugu dambeeyay u timid wiilkii Mohan oo markaan banaanka taagan waxaan markaan u tooriyaa furihiisa waxaan ku yiri waanaad nagu wadaa gaariga ay markaan soo koreen waxaana bilaabay in markaan soo dhaqaajiyaan wiilkii Mohan waa iska hurdayay iidan gaariga ay ku waday oo dambeeytiina waxa markaan Kenya gurigeeda maalintii xigtana dhammaan shaqaaley waxay markaan soo yimaadeen meeting roomka xitaa waxa ku jiray milkiilii company-ga waxaana la bilaabay in halkaas lagu qabto shir Fargees dhammaan xubnaha ugu weyn shaqaalana kamid ay ahaayeen waxaana bilaabay in markaan ka tashtaan ayaa company-gooda iyo qaabkii u hagaajin lahaayeen ugu dambeeytiina gabdhiileed markaan way soo dhaqaajisay waxay markaan xafiiskiisii fiirinaysaa wiilkii Mohan laakiin halkaas way ka waayisay waxaana kulmaysaa gacan yarihiisii waxaana ku tiri hay warqad ayaad buuday xageed socotaa isagana waxa ku yiri maya meel dheer uma socdo kaliya waxaan u waday xafiiska Mohan iidan waxay ku tiri hay alaabtana waana isku dartaa isaga iyo iska leh dhammaan shoobikeeda ayaa markaan u dhiibtay shoobikiina waxa uu bilaabay inuu markaan ka daato xitaa warqadii ayaa markaan ka daatay warqadiina iidan waxay fiirisay in markaan fiiriso laakiin isagii waa ka qaaday kaliya iyada waxay rabtay in markaan ogaato wax isagu gacmaha ku waday waxaan markaan ku tiri saaxiibkaada ma jooga isagana waxa ku yiri waa uu joogaa inta kadibna waxaan aragnaa wiilkii Mohan oo markaan qabaysanay kuna jiray baraag halkaas oo waqti fiican sii qaadanayay waxaana bilaabay in markaan cabitaan iyo fruit u keento isla markiiba isagana baraagta ayuu ka soo baxay waxaan markaan ku yiri hay maxaa qasbina dalkaan igu timaado iyadana waxay ku tiri qaabanaashada aad ugu qurux badan tahay maxaa yeelay markii dharka aad gashantahay waxaad u egtahay boos laakiin marka aad qaawantahay waxaad tahay mid u eg ciyaalka xaafadda ma aanan ogeyn sidaan oo inaad u qurux badan tahay isagana wuxuu ku yiri maxaa tiri bal hadalkaas markaa ku soo celi waxaana bilaabay inuu markaan ku sii dhawaado oo markaan ku darqo iidan way ka durqaysay intay ka durqaysay waxay bilowday inay markaan baraagti ku dhaxdhacdo baraagti markay ku dhaxdhacday waxa markaan ku soo dabagalay wiilkii Mohan waxaana bilaabay inuu qabto maadaama aysan garaneyn wax dabaalan waxaana bilaabay inuu markaan banaan ku soo saaro oo markaan shukumaan siiyo halkaas ayna bilaabay in markaan labadaba ku wada sheekaystaan sheeko dheer kadib waxa la gaariyay habeenkii wayna ka soo dhaqaajisay idoo markaan ka soo aaday xaafadeeda subaxdii markii la gaaray way shaqo tagtay waxaana markaan xafiiskiisa ugu tagaysaa wiilkii Mohan waxaana markaan tusaysaa dhammaan liiska ay soo diyaarisay iyo shaqo maalmeedkeeda ay soo qabatay waxaan markaan ku yiri may weli waxyaa ku dhiman waana soo dhameystirtaa waxaan markaan u qabtay 2 saac oo kaliya markii bixiratu waxa uu ku yiri soo fariiso halkan xitaa waad ku dhameystiran kartaa halka ayna fariisato waxaana bilowday shaqadeeda inay dhameystirato isla waqti hadarkaas oo shaqadeeda ay guulatinaysa isaga uu sheekeynayay waxaan markaan ku yiri horta waxa muhiim ah in la kala saaro shaqada iyo saaxiibtinimada adiga saaxiibteeda waa tahay sidoo kalena shaqaalihiga waa tahay waanad midaas ogaataa markuu midaas ku yiri waxay bilaabeen markaan ka talaabsato in halkaas ka dhaqaajiso maadaama markaan howlaheedii bagatay maalintii xigtana waxa markaan soo yimid meeting roomka si markaan wax looga bedelo qaabka shaqada u socotay waxaana bilaabeen in halkaas shir Fargees markaan ku wada qaataan oo ay ku wada sheekaystaan kadibna wiilkii Mohan ay gabdhiileed waxay bilaabeen markaan wada kulmaan oo ay markaan wada sheekaystaan waxaana ku yiri hay adiga ma faraxsantahay mise ma faraxsanin iidan waxay ku tiri farxadeeda iyo murugadeeda ma jirto wax ka galay maxaa yeelay hadii aad farxadeeda qiimeynayso shaqooyinka faraha badan ayaa adiga yareen lahayd isagana wuxuu ku yiri saaxiibtinimada iyo shaqada waanaad kala saartaa aniga waan ku ixtiraamaa laakiin xarag ixtiraamka dad soo gudubto ixtiraamka ayaan ka tagayaa waa uuna ka dhaqaajiyay wiilkii Mohan isagoo xafiiskiisa socday gabdhiileed oo markaan cararaysay markaan ku dhacday gabdhiileedna dhammaan alaabtii way ka daadatay waxaana ku yiri waan ka raali gelinayaa maadaama alaabtii ka daaday waxaana bilaabay inuu markaa alaabtaadii la gurbiyo alaabtaadii markii la gurbiyo waxa uu bilaabay inuu halkaas ka dhaqaajiyo habeenkiina wiilkii Mohan waa uu soo dhaqaajinay isagoo markaan gaargiisii wata waxa markaan u maaniyay gabdhiileed oo markaan kaligeed meel fadhiisa oo halkaas jawi ku qaadanaysay teed ayuu markaan soo fariistay waxaana bilaabay inuu markaan u sheekayo gabdhiileeyahay markii cabaar uu la sheekaysanayba waxa markaan bilaabay inuu istaago oo markaan jaakadiisa siibo uguna dado lugaha maadaama xoogaa qabo uu jiray waxaana markaan ku yiri hay waxaan filayaa hadii aad faraxsan tahay maxaa yeelay caawa aad u qurux badan xidigaha jawigana waxa uu yahay mid aad u degan waad ku qasban tahay caawa oo kale inaad faraxsanaato iidan waxay ku tiri midaas waa qasab inaan caawa oo kala murgo shuruucda maba sheegaysa waxaana bilaabeen si aad u qurux badan halkaas u sheekaystaan subaxina markaan way soo wada raaceen iyagoo markaan soo qaatay gaarigoodii soo wada aaday shaqada waqti habeenayd oo roob ay u socday ayaa gabdhiileed wax markaan ku lugeynaysa roobkii iyadoo markaan alaab waday kaligeed ayayna ahayd oo ma aysan jirin cid la socotay inta alaabtii ay wadaba taleefkeeda ayaa markaan u soo dhacay taleefkeeda ayay bilaawday markaan qabato dhammaan alaabtiina way ka daadatay waxaana markaan meel dheer ka arkay wiilkii Mohan gacan yarihiisa
dalada iyo markaana soo qaatay wuxuu markaana soo aadayaa gabadhii leeyahay xaggeeda dalada iyo markaana kor ugu qabtay waxaan markaan aad u yaabaysaa naxariista wiilkii Moha gacanta ayuuna soo qabtay wuxuuna bilaabay dhammaan alaabteeda inuu markaan u soo aruuriyo iidina dalada ay u haysay alaabta marka uu soo aruuriyo wuxuu bilaabay inuu markaa alaabta u qaado iidina markaan daladii u hayso aad bayna u heshay naxariista uu sameeyay wiilkii Moha maadaama waa nin aad u qalbi fiican kadib maalintii xigtayna gabadhiileed way soo dhaqaajisay idoo markaan timid shaqadeedii markay shaqadeedii timid ba wax markaan arkaysa daladeedii waxaana daladaani daladii markii roobka uu socday ee markaan iyada wadatay waxaan halkaan u dhigay wiilkii Moha midaasna way fahantay daladeedina way qaadatay wayna xariisatay kursigeedii shaqada ay fariisatay waxaana bilowday shaqadeedii inay markaan sii wadato kadibna gabadhiileed waxa markaan u imaanaya maamulaheedii markuu u yimid waxa markaan ku yiri ay shaqadaada iga waran waxaana ku tiri shaqadeeda aad bay u fiican tahay waxaan markaan tusaysaa dakhliga isbuucan soo xareeyeen markuu midaan arkayn aad buu ugu farxay waxuuna ku yiri shaqo fiican ayaad qabatay laakiin gabar ka mid ah shaqaalaha markaan waxay tiri wiilkii Moha shil ayuu galay ee midaasi moogtihiin milkiilihii gabadhiileed gabadhay markaan u yimaadeen waxaana ku yiraahdeen midaasi ma hubta waxaana ku tiri ha baraha bulshada ayaa la soo dhigay hadda ayaan midaasi arkay gabadhiileed midaasi aad buu ugu washay waxaana bilowday in halkaas ka soo cararto oo ina markaan ugu dambeeyay timaado halkii markaan uu ka dhacay shilka ka dhacay markay timid waxay bilowday inay markaan soo cararto oo dhamaan dadkii markaan soo dhex jirto dadkii markay soo dhex jirtay askarta ayaa markaan celisay laakiin ugu dambeeyay askarta waxay u sheegaysaa in ninkaan shilka galay ay halka miskala shaqeeyaan wayna soo deeyeen gudaha markaan u soo gashay idoo markaan cararaysa waxaana bilowday baabuur kasta inay markaan fiiriso idoo markaas raadinaysa wiilkii Moha meel kasta ayna tagtay gaari dabagdoosan xanta way fiirisay laakiin halkaas way ka waynaysaa wiilkii Moha waxaana bilowday in markaan teleefkiisii wacdo ugu dambeeyay wiilkii Moha ayaa markaan teleefkii ka qabtay waxayna ku tiri hay ii waran sidee tahay caafimaad qabtaa isagana wuxuu ku yiri ha waan caafimaad qabaa aniga waan fiicanahay kaliya dalawarkayga ay dhibaato soo gaartay ambalaasta ayaan saaranahay hadda ayaana raba inaan qaado dalawarkayga teleefankana uu iga dambi rabaa ambalaasta iyo markaan ka soo fiiriyay waxaan markaan arkayaa gabadhiileed oo markaan taagan meel aan isaga u dheerayn ambalaasta iyo markaan ka soo degay ambalaasta markaan ka soo degay bas toos iyo markaan ugu imaanay gabadhiileed markii uu yimid bahadlaan iyo markaan habsiiyay wuxuuna ku yiri aad baad u mahadsan tahay maxaa yeelay inta hadda dhibaatadani ku jiray ma aan arkin qof halkaan igu yimid waxa tahay qofkii ugu horeeyay oo halkaan igu yimaada waxaan ogaaday dhammaan dadka inaadan adag ila sineen kadibna waxa uu bilaabay inuu markaan daladsi uu gacanta u geliyo oo ku yiraaho hay habeen wanaagsan aniga dalawarka ayaan sii qaadaya hadoo diijeeda aniga waan caafimaad qaba adigana caafimaad ayaan ku rajeynaya waynaad xaafadaada wayna ka soo dhaqaajisay idoo markaan soo aaday gurigeeda ugu dambeeyayna gurigeeda ay markaan timid waxaan markaan u imaanaysaa saaxiibteedii markii uu timid waxay bilowday inay markaan dharka iska soo bedesho oo ina markaan sheekaystaan iyadii saaxiibteedii kadibna dhammaan howlwadeenadii kambaniga halmar ay markaan wada kulmeen waxaan howlwadeenadaasi ka mid ah wiilkii Moha iyo maamulihii kambaniga waxayna bilaabeen inay markaan ku jiraan meeting roomka waxayna markaan ka wada tashanayeen qaabkii ay markaan wax badan ugu bedeli lahayn kambanigani maadaama iyaga madax u yihiin sidoo kalena waxa halkaas ku soo sheeqaadeen ninkii markaan iyaga ka xanuunsanaa kaasoo shilka galayay waxaana qasab inay sida ugu dhaqsiyaha badan dabiibaan waxayna bilaabeen inay markaan u qoondeeyaan lacagtii markaan ku dabiibi lahaayeen dalawarkoodii shilka ka galay halka gabadhii Moha markaan iska joogtay shaqadeedii dhammaan shaqaaliin halkaas ay ka macsalaameeyeen maadaama waqti dambe ay ahayd laakiin ida shaqo badan ayaa u taalay oo shaqadeeda ay bilowday markaan iska qabsato waxayna ahayd mid aad ugu faraxsan maadaama markaan shaqadeedii haysatay waxayna bilowday inay markaan shaqadeedii ku raaxaysato oo ina markaan iska ciyaarto idoo markaan muusig iska dhageysanaysay laakiin intii iska baashaalaysa waxa halkaas ugu imaanay wiilkii Moha wuxuuna ku yiri markaad ciyaarayso aad baad u qurux badan tahay hal mar ayna naxday waxayna ku tiri midaasi ma hubta isagana wuxuu ku yiri meel lagu ciyaaro ayaan u socdaa ee hore ku sii wadaya idina waxay ku tiri dhib ma lahan waan ku sii raacaya wayna soo wada dhaqaajiyeen waxayna markaan yimaadeen goobtii lagu ciyaarayay markaas yimaadeen ba wiilkii Moha gacanta u taagay gabadhiileed wuxuuna ku yiri haywana soo foosha halkaan si aan labdan u soo wada ciyaarno waxayna bilaabeen iyadii wiilkii Moha inay markaan fuulaan baarka lagu ciyaaro kulli aniga daawadayaal baarkan lagu ciyaaro magaciisa ma garanayo haddii aad garanaysaan ugu wadaaga qaybta hoose ee faalada baarka ayaana dhaqaaqay waxayna bilaabeen inay baarkii waqti aad u qurux badan ku soo qaataan inkastoo gabadhiileed ay aad u cabsanaysay maadaama ay ahayd markii ugu horeysay oo baalkan ay raacdo baalkiina waxa uu bilaabay inuu markaan zad u soo wareeriyo ugu dambeeyay markii baalkii ka soo degeen gabadhiileed waxay bilowday inay markaan wareerto oo madax zaad u xanuuno meel ayna soo wada fariisteen waxayna bilaabeen inay wada sheekaystaan gabadhiileed waxay ku tiri aad buu xanuunayaa madaxa maxaa yeelay aad ban ugu wareeray baalkan aad saartay wiilkii Moha wuxuu ku yiri maya waad ku cusub tahay haddii aad maalin kasta halkaan imaan lahayd wax stress ama uusan ku qabteen markasta waad farxsanaan lahayd hadda kadib waan halkaan imaada si aad waqtigaada oo dhan farxad ugu qaadato iyadoo dhowr cadeynaysa waxay ku tiri hay waayahay midaasi waan isku dayi doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan
inaan maalin walba halkaan imaado. Kadibna way soo dhaqaajiyeen waxayna bilaabeen inay markaan jalaato soo gataan. Jalaatada ayay bilaabeen inay markaan cunaan iyagoo markaan iska baashaalayay. intaa kadibna waxay markaan soo galiyaan dukaan waxayna bilaabeen sida ciyaalkii inay halkaas alaab ka soo gataan. welina baashaalkooda ma aysan ka dhamaanin waxay markaan imaanayaan meel kale oo markaan lagu ciyaarayay oo dalxiisayaasha ay joogeen. waxayna bilaabeen inay halkaas waqti aad u qurux badan ku qaataan oo markaan ku wada sheekaystaan labadooduba. waxayna markii ugu horeysay oo markaan ay wada qaataan waqti sidaan oo kala ah. aad bayna labadooduba isugu baxaysay iyagoo wada dhool cadeynayay. waxay markaan wada qaadanayeen waqti aad u qurux badan kaasoo labadooduba ka dhaxeeyay. ugu dambeyntiina waqti qaadashadii iyo baashaalkii markaan waa uu soo dhamaaday wayna soo raaceen. wiilkii Moana waxa uu bilaabay gabadhii Leed inuu markaan soo dhaweeyo. markuu soo dhaweeyay gabadhii Leed waxay ku tiri aad baad u mahadsan tahay maadaama aad farxad siisay maanta. caawa kale ma jirto habeen ila mid aad baan u faraxsanahay. isagana waxa uu ku yiri hay intii aan wada baashaalayna ma xasuustaa sawirkan. sawir ayuuna ka qaaday intii markaan ciyaarayeen. sawirka ay markaan ka qaadatay waxaana bilowday halkaas ka dhaqaajiso ayna markaan aad hooygeedii. intaa kadibna waxa markaan la gaariyaa sanad guuradii sanadka. dhammaan shaqaaley ka shaqeynaya gabadhiina waxay bilaabeen inay markaan xirfad casho wada qabsadaan. hal meel ayna isugu yimaadeen waxayna bilaabeen in markaan xirfad casho oo qurux badan markaan ay wada qabsadaan. halkaas ayna waqti fiican ku wada qaateen iyagoo wada sheekeysanayay. casho aad u qurux badan halkaas way ku wada cuneen. waxaana sidoo kale halkaas ku jiray wiilkii Moana ay gabadhii leeyahay. waxaadna moodeen in markaan iska sii fahmeen sidii hore wayna soo raaceen iyagoo markaan soo dhaqaajiyay markii xirfadii ka soo dhamaadeen. banaanka ayna yimaadeen. banaanka ay bilaabeen inay markale ku damaashaadaan oo dab ay ku shitaan. waxaana halkaas la joogtay asxaabtooda. iyagii asxaabtiina halkaas ay ku qaraxaysteen iyagoo markaan halkaas iga sheekeysanayay. laakiin inta halkaas ay qaraxaysanayeen gabadhii Leed markaan waa la soo wacay. taleefkii dhegta saaratay waxayna bilaabeen halkaas ka cararto. laakiin wiilkii Moana markaan ka daba yimid wuxuuna bilaabay inuu markaan jaakadii garbiisi u saaro isagoo markaas ku yiri aniga waan ogahay inaad aad u neceb tahay sheekooyinka dadka iyo waxyaabaha ay ku hadlayaan. laakiin waxa laga rabaa adiga waxyaalahaas oo inaad dhagta u dhigin oo aad mar walba noqoto qof adag oo ku kalsoon jecelkiisa. waan ogahay kaliya mid aan ogahay aniga in aad ku jeclahay adigana sidoo kale waxaan filayaa sidaad ii jeceshahay ka darin hadii jeceshahay. wuxuuna bilaabay inuu markaan gabadhii Leed shumis ku qabto. waxayna bilaabeen inay markaan halkaas ku shumiyaan oo halkaas ay ku wada qaataan shumis aad u qurux badan. maalintii xigtaba gabadhii Leed wiilkii Moana markaan way ballameen. waxayna markaan qorsheeyeen inay markaan dalxiis aad u qurux badan soo qaataan. wayna soo raaceen iyagoo markaan aad ugu faraxsan gacmaan is haystay. jecelkooduna wuxuu markaan noqday mid laba jibaarma. aad bayna isku jeclaayeen maadaama ay markaan ka soo dhaxbixeen dhammaan dadkii. waxayna bilaabeen inay markaan aad isku jeclaadaan oo markaan ay sheekaystaan waxayna joogeen xeebta. inta ay sheekaysanayeen wax markaan ku tiri run ahaantii inta noolaa wiligii maan isdhehaynin waxaad heli doontaa wiilmo oo kala ah. maxaa yeelay adig aad baad ii jeceshahay mana ka arkin intii aan kula socday wax qiyaamo ah. isagana wuxuu ku yiri anigaba sidoo kale aad baan ku jeclahay. waxayna bilaabeen labadooduba inay halkaas ku qaataan waqti aad u qurux badan. markii istaagay socodkii ku daaleen waxay bilaabeen inay markaan iska fadhiistaan oo markaan ay sheekaystaan. inta ay sheekaysanayeen shumis ay markaan isla dhaafsanayeen waxayna xilli qorax dhaca. waxayna bilaabeen in halkaas shumis kale ku wada qaataan iyagoo markaan aad ugu faraxsan jecelkooda. kadibna wiilkii Moana wuxuu markaan imaanaya kambaniga. intuu kambaniga joogana wuxuu markaan ka yahay qof caadi ah mana muujino markaan jecel yahay gabadhii leeyahay. gabadhii Leed sidaas oo kale ay yahay markay shaqadeeda ay joogto waxay qof kale. laakiin markii Moana ay joogtana waxay sidoo kale qof kale. jecelkeeda kuma muujiso goobta shaqada kaliya jecelkeeda wuxuu ku muujin jirtay markii Moana ay joogto kaliya. kadibna dhammaan shaqaaley kambaniga ayaa markaan waxay isugu yimaadeen meel markaan lagu ciyaaray ciyaaraha geemka. maxaa yeelay waxa lagu soo shaacay baraha bulshada. halkaan ayay isugu yimaadeen si markaan halkaan waqti wada qaataan. waxaana sidoo kale halkaas u imaanay wiilkii Moana sheeko qurux badan ay halkaas ku wada qaateen. waxayna bilaabeen inay markaan geemam aad u qurux badan wada ciyaaraan iyagoo markaan geem kasta ciyaaray. ugu dambeyntiina waxay bilaabeen inay markaan boxing ciyaaraan. wiilkii Moana wiil kale oo markaan ka shaqeynaya kambaniga ayaa markaan ku soo aaday. waxayna bilaabeen labadooduba inay dagaalamaan. laakiin wiilkii Moana hal mar ayuu markaan farq badsiiyay wiilkii kale. wiilkiina markaan waa u wareeray isagoo markaan jaaday ka qaldantay. wuxuuna ku yiri wiilkii Moana waana jaalaada saxda. laakiin wiilkii waa waxanaaqay waa uu ku soo cararay. wuxuuna bilaabay inuu markaan lugta qabto oo markaan lugtii aad u maroojiyo. wuxuuna ku yiri wareega foqsadaan ciyaarta kamid maaha kaali xarashmeed ii haysa la idishimiyaad rabtaa. ugu dambeyntii isagoo tacbaan ayuu markaan ka foqay meel ayna soo wada fariisteen. wuxuuna ku yiri saaxiib oo feer aad u xun ayaad ugu dhufatay sidaas awgeed aniga waan ka aarsanay oo kaliya ee wax kale ma jiraan. aniga waad ogtahay awood badan ayaan leeyahay haddii aan ku isticmaalana waan ku dili karaa. wiilkii Moana wuxuu ku
yiri saaxiib boostadii ka dhaaf ee waana adiga fadhiisataa waxaana bilaabeen isaga saaxiibkiisa inay halkaas iga sheekaystaan kadibna dhammaan howlwadeennadii kambaniga ayaa markaa halkaas ugu yimid waxaana markaan ogaanaynaa milkiilahani inuu baahaa wiilkii Moa aabihiisa laakiin xaqiiqda midaas way naga qarsaneed dhammaan howlwadeennadeena waxaa markaa loo sheegayaa wiilkii Moa inuu dhalay maamulaha kambanigan hadda kadibna isagu mas'uul ka noqon doono dhammaan kambanigan iyo wixii hoos imaada maamulihii kambanigana wuxuu markaa xil ku wareejinayaa wiilkii Moa wuxuu markaa dhammaan howlwadeennadeena ku yiri waad la shaqaysana wiilkani Moa maxaa yeelay aniga waan si gaboobi rabaa hadda kadibna waad ogaataan inuu wiilkeyga yahay wiilkii Moa mid kamid ah howlwadeennadeena waxay bilaabeen inay markaa wada shaqaystaan labadooduba waxaan markaa ku yiri hay sidoo rabtaa Moa inaad wax ku wado maadaama hadda aabahaaga uu ka sii duqoobay saaxadda kambaniga wiilkii Moa wuxuu ku yiri aniga waan yarahay kulli waxaan rajaynayaa wax kasta inay hagaagi doonaan kadibna wiilkii Moa ee gabadhii leeyahay ayaa markaa wada kulmaya waxaan markaa ku tiri wari adiga waad qiyaantay maxaa yeelay maadan ii sheegin maamulaha kambaniga inuu aabahaaga yahay horta midaas aad baan ugu faraxsanahay laakiin ma yeesneen inaad iga qariso laakiin wiilkii Moa wuxuu ku yiri laakiin midaas waxay mid soo bixi doonta haddana way soo baxday soo maaha waxaana bilaabeen isaga gabadhii leedina markaa dalxiis soo aadaan gabadhii leedina inta dalxiis ku jirto markaana wacaysa maamulaheedii waxayna ku tiri maamul waan ka xumahay waad iga qarisay wiilkii Moa inuu wiilkaada yahay laakiin maamul ayaa wuxuu ku yiri ha wiilkiiga wuu yahay laakiin waa in isaga isbixiyay oo kambani ayuu gaar u leeyahay aniga shaqo migu lahan inta kadibna waxay bilowday inay markaana ciyaar iska ciyaarto kaligeeda ugu dambeyntiina waxa halkaas u imaanay wiilkii Moa wiil kale waxaana bilaabeen ciyaartii markaana ciyaaraan wayna soo raaceen wiilkii Moa iyadii waxaana bilaabeen inay markaana wada sheekaystaan waxayna ku tiri haya mar kale ayaad qiyaantay maxaa yeelay qalbiga waad xaday haddana ma aadan ii sheegin inaad kambani gaar u leedahay isagana wuxuu ku yiri maya kuma aanan qiyaamin marka hore waad ogeed qaabka aan kambaniga ku yimid sheeko dheer kadibna waxay bilaabeen inay xeebtii waqti aad u qurux badan ku qaataan iyagoo markaana isku faraxsan oo aad ugu faraxsan qaabka ay markaana waqti wada qaadanayaan waxaana markaana labadoodiba noqday jaceylkoodii mid guuleysta maanta waxaan kan kusoo gabagabeynaa qaybtii ugu dambeysay ee taxanaheena maanta muuqaalkeen intaan ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan midka xiiso badan kulmi doono sida sii nabaadiino